hadalka caynkaasa ee qiimaha leh afka qiimaha leh ayay haddii aw hadalku caana ahaan lahaa suugaantu waxay noqon lahayd labeentiisa hadalka sidaa u qiimaha leh ayay intiisa ugu quruxda badan tahay suugaantu waxa weeye hadalka sidaa u quruxda badan intiisa ugu sii quruxda badan wey ayaa la yidhaha suugaan literature inaan idaacadda maanta weydiinayo wuxuu yidhi suugaantu maxay u qaybsantay suraaska aan gabayga aan tirinayaana wuxuu ka mid waxaan dareemayaa inaan ku contribute garanayo to the human heritage in general ayaa ku contribute waa ayaan fiilkee walaga caynkaa wey waaya suugaantu hadday sidaa tahay suugaan oo dhamme markaa waa isku mid si ubay wada qaybsantaa inagu waxaynu u qaybinay tixya tiraaba af soomaaliga lagu dhahaa gaaladu waxay tiraahdaa poem iyo prose labaasay u qaybiyaa af soomaaligana waa tix iyo tiraab waan xasuustaa nasiib waxaan u yeeshay inaan guddigii markii af soomaaliga la qoray 73 bal anigu 72 markii af soomaaliga la qoray 73 baa waxaan ku biiray guddigii af soomaaliga qoraalkiisa iyo dejintiisa ka qayb qaatay anaa gudaa yaraa markaa ragii guddiga af soomaaliga waxaa loo baahday inay bixin inaan bixin la sameeyo markii af soomaaliga la qoray inay bixin baa loo baahday markaasaa la yidhi ha la sameeyo waxaa soo baxay poem iyo prose maxaynu u bixinaa waxaa la qaatay tix iyo tiraab haddaa u fiirsataan afafka suugaan afeedda ku shaqeeya oral literature suugaan afeedda ku shaqeeya wax qoran ma jiraan marka xasuusta la xasuusanaya wixii la yidhi way adkaataa waxaa wax ka tara waxa la yidhaha alliterationka alliterationku waxa weeye xaraf raac ah ayaa af soomaaliga lagu dhahaa ereyo ku wada bilaaba xarafyo isku mid ah ayaa la yidhaha alliterationka iminka tix iyo tiraab xasuustoodu inaad xasuusataa way fududahay sababta oo ah waxay ku wada bilaabmaan tacbay ku wada bilaabmaan alliterationkooda isku mid ah afafka suugaan afeedda oral literatureka waxay isticmaalaan waayo waxba ma qora si loo xasuusto waxaa la israaciyaa lamaanayaal isku xaraf ah rag iyo ruux war iyo wacaal joog iyo jiif kafal iyo kowl yani xeer iyo xaagaan waxaa la isticmaalaa ab iyo abnab dooc iyo dareen waxaa la isticmaalaa xarfo isku mid ah waxaa loogu talagalay xasuusta ayay fududaysaa matalan hilibka haddii iminka neef la qalo neefka wuxuu u qaybsamaa laba neefka oo dhami gebigiisuba gudahaan laba u qaybsamaa wuxuu u qaybsamaa so iyo saan haragga sare oo saanta ah iyo inta soo hadhay oo so la isku yidhaahdo waxaa la isticmaalayaa lamaane xasuusta lagu isticmaalaya suugaan afeedda leh so iyo saan buu hilibka oo dhan u qaybsamaa haddii saanta aad ka qaado oo aad soo reebto inta isku fadhida ee kale oo aad saanta ka saarto waxay u qaybsantaa laf iyo lud waa laam laga soo arkimaysid laam bay raacaysaa taas laf iyo lud ayay u qaybsamaysaa haddii lafaha aad ka saarto oo aad soo reebto inta hilibka ah haddaad soo reebto waxay u qaybsamaysaa jiid iyo jibaadh bay u qaybsamaysaa oo waa jiidle markaana waxaa isticmaala yani marka aad geedka la tago ee xeerbeegtigeedu geedka tagto waxay u leedahay legal terms bay soomaalidu lahay legal terms erayo qaanuunka lagu isticmaalaa bay lahayd si ay u xasuustaan dadka odayaashu waxay isticmaalaan lamaanayaasha garta marka la qaadayo kiiska soomaali dhex mara dhammaantii markii la isu geeyo soomaalidu waxay u qaybin jirtay laba baalkeena inkaa taabanaysaan dotcomkiina yar marka odayaashu way taabanayaan kiisku waxaa leeyahay ma dhurbaa mise waa dhaqan kiis oo dhabe waa dhur ama waa dhaqan waa dhac laga soo arkimaysa
kiis kasta oo Soomaalidu isku qaybsato waxay u kala fayl laba fayl bay ku kala riteen labada fayl midna waa dhul midna waa dhaqan waxa la wixii dhiig ku saabsan dhiig ku saabsan kiiskaasi faylkiisa dhul baa la yiraahdaa dhul waxa la wixii aan dhiig ku saabsanayn nolosha dhaqamaadka ku saabsan dhaqan baa la yiraahdaa marka kiis oo dhami marka odayaashu geedka soo fadhiistaan waxay oranayaan ma dhul baa mise waa dhaqan bay oranayaan waxa la oranayaa waa dhul badan waa dhiig kiiska soo baxay waa dhiig dadka wuxuu taabanaya halkiisa waa inuu dehelo xusuustiisa odagu wuxuu koonayaa ma qurba mise waa qool kiisku hadduu dhiig yahay wuxuu leeyahay lamaane laba fayl buu furan oo isku xaraf ku bilaabma wuxuu oranayaa ma qurba baxday mise qoon baa dhacday dhabar baa dhacay waa labadaasuu kiiska dhiig qudhiya qool buu kala baxaya haddii uu kiisku yahay dhaqmaati waxay oranayaan ma xilaa mise waa xoolo kiis fayl kala uga fayl bilaa oo xaq ku bilaabma xilo iyo xoolo Soomaali waxay isku qabsan jirtay kiisaska isku qayb dhaqmaatika ah waxa loo qaybiyaa xilo iyo xoolo xilaha lagu wada hadlayo waxa weeye naag la furayo naag la dubaalayo يعني ناقل كلا قاضي كيس فيل بين هذا وحلا كوساب صلي مدونا بكا كو خديك الحوالة اسكو هيستا هدو كيسكو حولي هي لابو كلا بحيا لابا فيل بولي ولا تابليا حسوستي بالغا تابليا لابو كلا بحيا وحلويا ببربا بسوا بين با فيل لابا فيل بعلي بولي اما هو بر حولات بالاسكو هيستا اما بير بالاسكو هيستا لو اخر من الهاجري لباس بالاسكو هيستا كيس خوله لباس ورايا بريا بير خدو بر حولات دقدو لبا وسي كلا بخيا او خلي لبا فاي ما مغان باب سوا مور بالوريا او لبا فايلو ميما ما لا يبولي او مغاليا مورو xoolaha la isku qabsaday laba bay noqonayaan xoolo xire ku jira moorada waxa la yiraahdaa xirada waa la mooro duugaada la baqasho xirada la baabiyo xoolo ku jira baa laga qaad mooro waa xirada waxa loo yahay xeero waxa la isku qabsan karaa oo kiis ka dhalan karaa xoolo mooro ku jira xire ku jira waa kuwa yaa isku qabsada waxa isku qabsada dad walaala ah abay baadeera dhaxal wadaaga ayo waa xoolo xeerada ku dhashay dhaxal baa la isku qabsadaa lagu kala baxo oo fayl beleeday ka duul yahay kiisku mid moora ah hadii kale waa magan xoolo waa magano ama baadi bay kugu yimaadaan ama dhac bay kugu yimaadaan ama tuugay kugu yimaadaan waa magan bulqora waxa halka uga dan lahaa waxa loo isticmaalaa lamaanayaasha tixiya tiraabkii la qaadanayay waxa loo isticmaalay suugaanafeeda u baahata suugaanafeeda waxay u baahataa in la isticmaalo xarfaha aykaas yani xarfaha isku xaraf raac ereyada xaraf raac leh waaye suugaanta marka hadba suugaanta laga hadlayo suugaanta la saakada xogaa yar ka dhig oo hadii waxa afka ugu sareeya afka lagu waraabo hadaa eegtaan qolada qaanuunku waxay leeyihiin erayo legal terms af bay leeyihiin oo afka loo taayada ku kala qabo eray waliba wuxuu leeyahay definition iyo macna xadidan oo la isla gartay oo eraygu ma qaadi karo macnihiisa in ka badan haddii kale eray qaanuun noqon maayo erayga waa in la define gareeyo la xadido la yidhaahdo eraygaasi qareen markaan leeyahay eedaysana markaan leeyahay dambiile raafa markaan eray waliba wuxuu leeyahay macno xadidan oo aan kala bixi karin ayuu leeyahay oo waxa la yidhaahdaa haddaan macnaha xadidan la siina qaanuun ma jirayadii oo kalmadu macnayaalka ayaa bigwitis yimaadaan qaanuun ma jiray waayahay qolada biology qolada science qolada administration qolo waliba waxay leedahay kelmado technical terms bay leedahay oo ereyada waxa la siiyaa macnayaal xadidan oo aan la dhaafi karin qolo waliba oo ereyga haddaan lagu definition lahayn macluumaad marka qaanuun imka la daabacayo erey waliba definitionkiisa la sheegay kelmadda waxa lagu jeedaa
iyo sidaa kow qolo walbana way leedahay ama caafimaad ha ahaadeen ama ha meesha dooniya ha ahaadeen waxay leeyihiin eray bixin u gaara oo ereyadu macna xadidan leeyihiin halkan iminka caawa waxaynu ka wahadlaynaa waa wax ka duwan waa meesha erayo sugaanta marka laga hadlayo waa meesha erayadu seetada ku goostaan erayadu waxay jebiyaan gidaarada iyo definitionka ay lagu xirxiray bay jebiyaan ma ogola waa meesha waalid iyo meelka u dhaxaysa sugaantu oo erayga xadidan iyo waxa la taqaan baa